maanta oo bishii 30 tahay bishii 3aad 2026 waxaynu halkan u joognaa kaabayaashii horumarka Somaliland mid kamida iyadoo oo wasaaradda iyo hay'adda ADRA ay iska kaashanayaan fulinta mashruucan oo ka qayb qaadanaya kor u qaadida dhaqaalaha bulshada maantana waxaynu halkan ku dhagax dhigaynaa oo inuu wada joognaa mashruuc lagu horumarinayo qaybta sariimada waliba hilibka ah in bulshada reer Balugubadle loo sameeyo muxuu ahay talaagado storage oo ay ku kaydsadaan hilibkooga waqtiyada halkii uu awal hore kaga xumaan jiray ee uu waayay lahayn meel ay ku kaydsadaan waxaan loo sameyn doonaa oo uu mashruucani fulin doonaa qalab tayadiisu aad u sareyso baahida magaaladana daboolaya ay kaga maarmi doonaan waxyaabihii kaga lumi jiray muxuu ahaayay dab la'aanta iyo kayd la'aanta mashruucani waxa weeyaan mashruuc muddo badan laga soo shaqeynayay uu ka soo dhaadhacay heer madaxda wasaaraddu dadaal ay u gashay maantana aan midhihiisii u joogno baaqi bulshada ee reer Balugubadlena baahida ka jirtayna maanta laga soo jawaabay la fulinayo oo aan maanta halkan wakiil uga ahay madaxdii wasaaradda wasiirkii agaasimihii guud mashruuciina uu fulintiisina joogo waxaynu u joognaa maanta inaynu ku wareejino shirkadii hawsha ay noo qabanaysay inoo dhisisay iyaduna halkan diyaar ku ah waa shirkad maraaxil soo martay oo ku soo baxday competitive waa shirkadii ku guuleysatay marka shirkadii ku tartamayay shaqada wanaagsan ee ku soo xulanay markuu mashruuceennasi dhamaado ayaynu ka marakici doonaa dabagalkeedana waxa iskale wasaaradda iyo shirkadda mashruucaasina wuxuu noqon doonaa mid baahida maanta magaalada taalo daboola oo aan ahayn muddo kooban in mashruuc ku dhamaadee qalabka la keeni doonaa inay muddo badan shaqeeyaan oo maadaama tayadooda aan sugnay oo muddo badan aan ka shaqeynaynay standardskii caalamiga ana ay wada leeyihiin haddii solarka tahay haddii baytariyada tahay iyo haddii talaagadahaba tahayba marka waxaan kula dardaarmayaa bulshada ka faa'iideysan doonta iyo maamulka dawladda hoose ee Balugubadleba sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen una ilaashan lahaayeen daryeelkeedana ay ula iman lahaayeen yaanu mashruucaasi markuu dhamaado daryeel la'aan wax inooga noqonin xagga tayahaan inooga noqon maayo oo aan hubnaa laakiin waxaynu u baahannahay daryeelka inaynu daryeelano u aragno waxaan inagu leenahay oo aan noqonin wixii ay wasaaradda tamarta macdanta iyo hay'adda ADRA keeneen ay noqoto waxaad leedihiin sidii u sii jiri lahaana waxaan ka codsanaynaa bulshadu inay ku baraarugsanaato mashruucaasina maanta dhagax dhig weeyaan shaqadaasi way noo bilaami doontaa contractorkiina uu joogaa uu la wareegayaa maalinta ku xigta waxaan iskugu iman doonaa iyadoo oo la furay oo mashruucaasi inoo shaqeynayo ayaynu iskugu soo noqon doonaa inaynu xariga ka jari doonaa haddii alla idmo waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaybta fulinta leh iyo agaasimihii wasaaradda tamarta iyo macdanta agaasimihii waaxda tamarta iyo macdanta iyo hay'addii fulinaysay mashruuca oo ADRA iyo contractorkii oo ah Al-Aamin marka mashruucan la fulinaya waxa weeye mashruuc loogu talagalay baaqi maalinkii dhaweyd ka yimi magaalada ahaa in cabashada u weyn ay tahay in deegaanku halka tamarta uu ka dhibaato badan ka jirto oo ah in hilibkii iyo caanihii loogu talagalay dadkii baayac mushtarka ay ku ganacsanayay leyd la'aan darteed ay u noqonayso inay ka xumaadaan oo aan dib loo iibin karahayn sababta darteed baa waxa ay wasaaradda ka soo jawaabtay baaqi ka yimi bulshada marka maanta waxaanu dhagax dhigaynaa waxa mashruuc loogu talagalay in la sameeyo talaagado solartoodii wata qolkeedii loo dhiso kuwaasoo deedna markaa loogu talagalay in dadka gaar ahaan qaybta hilibka ee maanta mashruucu daaran yahay marka dadka hiliblayga ee magaalada degan inay ka faa'iideystaan oo maanta leyrkii waqtigii uu maqnaa ay heli karaan meel ay gashadaan marka hawsha waxaan ku wareejinaynaa waxa weeye dawladda hoose ee degmada Balugubadle ujeedada halkan isugu nimidna waxa weeyaan oo laga mahad celinaynaa wasaaraddu tamarta iyo macdanta oo wakiilka yahay agaasimaha waaxda tamarta baaqi ay ka soo jawaabeen ee bulshada reer Balugubadle maalintii dhawaato halkan cabashada ka muujiyey muruqmaalka hooyooyinka ee hiliblayda aad baan uga mahad celinaynaa mashruucan runtii waa mashruuc wanaagsan oo aad iyo aad noo anfici doona
ka dawladda hoose ahaana waa meelaha lafdhabarta waa dawladda hoose hadday dawladda hoose weydo sariibad ay ka adeegato waxa weeyaan waa meherad bilaa maqal ah waxa weeye maanta ambaqaadkii waad noo keenteen mar haddaad ambaqaadkii noo keentay seeskii sarwadu u dhacdo aad baad ugu mahadsantihi annaguna waxaanu ballan qaadnay inaan sidii hawlkarnimo oo nabadgelyo oo ammaano oo wanaagsan oo waxtar looga shaqaysano halkaas waxaanu ballan qaadaynaa inaanu isla markiiba fulin doono inay sarwadu dhaqaaqdo oo ay ku soo xaroodaan caanalayda khudradayda iyo hiliblayduba intaa wixii ka dhimadna wasaaradaha wixii aan ka baxnay waan idiin sii gudbin doonaa maantana hay-adda iyo shirkadda kontaraatanka qaatay aad baan ugu mahadnaqaynaa ku soo dhowaada gacmo furan iyo gacmo walaalnimo gacmo dadnimo gacmo somalilan sidaasna waxaanu ballan qaadnay maadaama meeshii halgan kaba timaadeen somalilan ee aad beelgubadlo u timaadeen waxaan u malaynayaa taariikhdiina dabaan qori doonaa macdanta iyo tamarta oo iyadu maanta la-aanteeda inay noo suurto gasheen inaan halkan soo gaadhno waxaan kaloonu sii mahad celinaynaa qolada dawladda hoose ee beelgubadle oo iyaguna si fiican noo soo dhoweeyey waxaa intaa ka sii xigtaa hay-adda oo adra iyo kambaniga Al-Aamin oo shaqada qabanaya sidii aan ku dardaaranay kambaniga waxaan ka rabnaa shaqo fiican oo qurux badan inuu qabto mashruucan laga hirgelinayo oo ah mashruuca active oo ujeedadiisu tahay inuu kor u qaado dhaqaalaha wareega ama circular economy mashruuca faa'iidadiisu waxa laga ka mid tahay tamarta iyadoo laga faa'iideysanayo si dhaqaalaha kor u kaco oo wax soo saarka dhaqaalaha xagga beeraha kalluumaysiga iyo xoolahaba aad looga faa'iideysto waxaan rajaynaynaa baahida halkan ka jirta inay wax badan noo daboosho insha Allah wixii dambena waa insha Allah lagu soo dari doonaa haddii Ilaahay ka dhigo aad baad mahadsantihiin kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay xafladan dhagax dhiga mashruuca lagu ballaarinayo sariibada beelgubadle taas oo ay maalgelisay hay'adda adra iyo ay garwadeen ka tahay wasaaradda tamarta iyo macdanta oo agaasimihi joogo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan dadka deegaanka oo si wanaagsan noo soo dhoweeyey annaguna waxaanu ballan qaadaynaa intaanu mashruuca gacanta ku hayno in si xilkasnimo leh oo mas-uuliyadi ku jirto inaan hawsha u gudan doono sidii loogu talagalayna insha Allah fulin doono waxaanu sidaas oo kale dadweynaha u sheegaynaa inay si wanaagsan ula shaqayn doono muddada la joogno insha Allah aad iyo aad mahadsantihiin